دقدقة wararka aanu ka helino taliska ciidanka xooga dalka ayaa sheegaya in saacadaha soo aadan la magacaabi doono tayaha ciidanka dhulka ee militariga Soomaaliya ayadoo General Biixi uu yahay shakhsiga ugu cadcad ee xilkan loo magacaabi karo علي جيت عثمان oo isla maanta boos ka heli kara hogaanka militariga Soomaaliya iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo hal beel isugu geeyay wasaaradda difaaca iyo sidoo kale taliska ciidanka xooga dalka ma waxa ay ka dhigan tahay in hal qabiil oo kaliya xilligan uu ku wajahan yahay dagaalka al-shabaab maxay tahay qorshaha magacaabista wasiir fiqi iyo sidoo kale taliska ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed in maanta ay haystaan ama ay ku fadhiyaan hal beel warbixintan ayayna ku qadaabigi doonaa daqiiqadaha soo aadan ee saaxiib haddii ay tahay markii ugu horeyso muuqaalkeena ku soo gaaro fadlan like noo saar muuqaalka si share galay qaybta faalada ka dhiiwa aragtida haddii ay tahay markii ugu horeyso beedkeena ku soo gaarana follow dheh oo nagu soo biir si aan u helno saaxiibo wanaagsan adiga oo kala mahadsanida saacadaha soo aadan waxaa la filayaa in la magacaabo taliyaha ciidanka dhulka Soomaaliyeed oo uu hadda ku fadhiyo General Sahal oo loo yaqaano Qaalid kaas oo ka mid ah saraakiisha militariga Soomaaliya sarayo guuta Sahal ayaa xilkan loo magacaabay wax ka yar 6 bilooda isagoo tan iyo xilligaasina wax ku guuleystay in dagaalada ka socda gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Galguduud uu ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed gool la gaaro inkastoo militariga Soomaaliya dad si weyn xogihiisa u haya ay soo tibinayaan in saraakiisha ciidanka aan ku qanacsaneen shaqeynta taliyaha ciidanka dhulka Soomaaliyeed General Sahal xilkan waxa hore ugu fadhiyay taliyihii hore ee ciidanka dhulka militariga Soomaaliya General Biixi kaas oo hadda howlgab isla markaana aanu ka shaqeynaa laamaha ammaanka gaar ahaan taliska ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed Biixi iyo taliyo Odawa ayaa mar qura waxa laga wada qaaday ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed xilligaasi oo taliska ciidanka loo dhiibay taliyihii hore ee militariga Soomaaliya Ibraahim Sheekh Muxidiin kaas oo sanad kadib laga qaaday militariga Soomaaliya kadib markii uu ku fashilmay in uu guulo waaweyn la gaaro ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed waxaana markale dib loo magacaabay taliyaha militariga Soomaaliya Sareeyo Gaas General Odawa Yuusuf Raage magacaabistooda waa Yuusuf Raage ayaa waxa dhinaca kale dul taagnay su'aal ahayd mar haddii militariga Soomaaliya loo soo celiyo Odawa talow ma heli doonaan taliya Biixi oo isna ka mid ahaa saraakiisha howlkarka aftahanada ee ka cinkara militariga Soomaaliya isaga oo lagu xasuusto inuu ka mid ahaa saraakiil cadala xabad ka bilowday kuwaasi oo gaaray ilaa iyo qeybaha ugu dambeeya ee gobolka Shabeellaha Dhexe iyo deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan maanta waxaa la filayaa in ilaa iyo caawa ay soo baxdo wareegto lagu magacaabayo taliyaha ciidanka dhulka General Biixi waxaana dhinaca kale soo baxaya warar kale oo sheegaya in magacaabistan ay la socoto magacaabista abaanduulaha ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed oo loo magacaabayo Cali Jeyte Cismaan gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan wararka ayaa waxa intaasi ku darayaan in Biixi dhankiisa uu aqbalay dib u yeeridda madaxweynaha Soomaaliya uu ugu yeeray in uu markale u magacaabo taliyaha ciidanka dhulka Soomaaliyeed si uu qayb ugu qaato halganka dib u soo cusboonaaday ee gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Galguduud kuwaasi oo hadda la filayo in maalmaha soo aadan guluf dagaal uu ka bilowdo degmada Cadalle ee gobolka Shabeellaha Dhexe dhinaca kale Cali Jeyte Cismaan gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan ayaa waxa la filayaa dhankiisa in maanta magacaabistas uu qayb ka noqdo abaanduulaha ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ayaa loo wadaa Cali Jeyte waxaana wararka qaar ay sheegayaan in beesha uu ka soo jeedo Cali Jeyte Cismaan ay si weyn u sulugsan tahay booskan ayadoo haddii Cali Jeyte loo magacaabo abaanduulka booskaasi uu ka bixi karo taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Niisa Cabdullaahi Sanbalolshe ayaa waxaa la filayay maalmaha soo socda in xilka laga qaado ayadoo dhawaantanba beeshiisu ay si weyn kaga hortimid xilka qaadista taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Niisa Cabdullaahi Sanbalolshe balse magacaabista la magacaabayo Cali Jeyte Cismaan ayaa la fahansan yahay inay ku husduugan tahay xilka qaadista Cabdullaahi Sanbalolshe General Odawa Yuusuf Raage taliya Biixi iyo Cali Jeyte Cismaan ayaa lagu xasuustaa howlgalkii gobolka Hiiraan iyo qaybo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana shacabka Soomaaliyeed intooda badan ay qireen in kaalintooda dagaalka uu ahaa mid aad u sareeya oo nafhurnimo ay ku dheehan tahay balse mar qura ayaa Odawa iyo Biixi xilka laga qaaday ayadoo maalmo kadibna Cali Jeyte Cismaan gudoomiyaha gobolka Hiiraan laga qaaday هذا شيء إن مرة قرأ يكسر ولا لابتان فرماه هوريه الدجال إسلام مركانا أي قريب كانوا قوان تلسك عيدا كحوق الدلكة أيها كميان إن شغال عصب لغوش ويو
taliska ciidanka xoogga iyo sidoo kaleba howlgallada socda waxaana wararka qaar ay sheegayaan in Cali Jayte Cismaan qudhiisu uu ku qanacsan yahay xilkan cusub ee loo soo bandhigay. fadlan daawada haddii aad soo gata qaybaha dambe ee muuqaalkeena like noo saar muuqaalka sii sheergalay qaybta faalada ka dhiibo aragtida haddii ay tahay markii ugu horeyso beedkeena ku soo gaaro follow dhe oo nagu soo biir si aan u helno saaxiibo wanaagsan adiga oo kale mahadsanid.